kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. Waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Fan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Cashirkan waxaynu ku baranaynaa football vocabulary or soccer vocabulary. Cashirkan ciwaankiisu waa football vocabulary. Erayo ku saabsan kubadda cagta. Ereyga football oo dhihi kartaa ama soccer. Football is used in British English. Ereyga football waxaa la isticmaalaa British Englishka. Soccer is used in American English. Soccer waxaa la isticmaalaa American English, Ingiriiska Mareykanka. Football, soccer macna ahaan waa isku mid laakiin waxay kala duwan yihiin British iyo American English ay kala yihiin. Football position is on the pitch or soccer position is on the pitch. Waxaynu baranaynaa boosaska ay ciyaartooyda ka ciyaaraan markay ku jiraan the pitch, garoonka, the field. This tactic is a classic 4-4-2 tactic. The positions may be different in other tactics, though the names remain the same. Tacticadan degsan ama formationkan oo ah 4-4-2 waa mid qadiimi ah, classic ah. Xilliyada dambe noocan lama isticmaalo. Waagi hore noocan unbaa la adeegsan jiray. Haddaynu ku bilaabno forwards, their main role is to score goals. Sometimes they are called strikers. Kuwan ka ciyaara xagga hore waxaa lagu magacaabaa strikers. Sidoo kale dhihi karaa forwards waa weeraryahanada. Their main role is to score goals. Doorkooda ugu weyn ama shaqadooda ugu weyn is to score goals, waa inay dhaliyaan goolal. Waxa weeyaan striker or forward. Sidoo kale waxaa dhihi karaa attacker, weeraryahan. Qaybta dhexe waxaa la dhahaa midfielders, waa ciyaaryahanada khadka dhexe ah. Players in the middle that help defend and also try to get the ball to the forwards. Ciyaaryahannadan waxaa weeyaan ciyaaryahanada ka ciyaaro khadka dhexe kuwaasoo ka caawiya inay difaacaan, sidoo kale isku dayaan inay kubadda gaarsiiyaan weeraryahanada. Waxaa loo kala saaraa center midfielder iyo labada dhexe waxaa la dhahaa center midfielder. Waxa weeyaan number 6ka iyo number 8ka oo taha iyo sayga. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa ninka ah sayga ah defensive midfielder. Defensive midfielder hadduu yahay kubad burburiye daafaca caawiyo noocaasa loogu yeeraa defensive midfielder. Attacking midfielder waa la dhihi karaa qofka weerarka dhexdana ah, attacking midfielder la dhihi karaa. Hadda laakiin si guud waa center midfielder. Garabka sataha ama toddobada waxaa la yidhahdaa garabka midig dhexe waxaa la yidhahdaa right midfielder ama right wing, waa number 7 garabka midigta. Kan garabka bidixda dhexda waxaa la yidhahdaa left midfielder or left wing, waa number 11 ama undishaha. Defenders waa daafacyada
Their main role is to stop the other team from scoring goals. And hadafkooda ama roolkooda doorkooda ugu weyn is to stop the other team from scoring goals. waxa weeyaan inay ka joojiyaan kooxda kale inay dhaliyaan goolal. Their main role is to stop the other team from scoring goals. Defenderska marka shaqadooda ugu weyn ama doorkooda ugu weyn waxa is to stop the other team inay ka joojiyaan kooxda kale kasoo horjeeda from scoring goals inay dhaliyaan goolal. Marka defenderska waxaa loo kala saaraa center back oo ah labada 5ka iyo 4ga waa jinguaha iyo quatraha. Right back waa number labada ama duwaha ama number 2 oo taqaanaan. Left back waa trega ama number 3ga ama number 3da. Goalkeeper waa goalhayaha, the only player that can use his or her hands in the penalty area. They try to stop goals. Waa ciyaaryahanka kaliya ee isticmaali kara gacmihiisa soo ku jiro aaga penalty area loo yaqaan aagan. They try to stop goals. Marka goalkeeperada iyagu shaqadooda waxa waa inay joojiyaan goolasha. Marka inta waxa waaye football positions on the pitch. People on the pitch or field, dadka garoonka jooga. Pitch erga iyo field waa isku mid waa garoonkii. Pitch is used in British English, field is used in American English. Inta badan dadka waxay moodaan American Englishka iyo Britishka in dhawaaqa kali ay u kala duwan yihiin, xataa qoraalka ay erayada qaarkood u kala duwan yihiin. And pitch marka is used in British English, field is used in American English. Marka pitch iyo field waa garoonka, waxaa pitch isticmaalo Britishka and field Americanka. A football team consists of 11 players on the field at the same time. Football team marka wuxuu ka kooban yahay consist of 11 players, 11 ciyaartoy on the field ee ku jira garoonka at the same time waqti isku mid ah. Two teams play against each other and there is a referee to make sure everyone follows the rules of the game. A football team consists of 11 players and kooxda kubadda cagta waxay ka kooban tahay 11 on the field ee ku sugan garoonka at the same time waqti isku mid ah. Two teams laba koox play against each other ayaa isku dhaca and there is a referee waxaa jira garsoore to make sure kaasoo xaqiijinaya everyone follows in qof kastoo ka mid ciyaaryahanada inuu raacayo the rules shuruucda of the game ee ciyaarta. The referee waxa waaye arbitraha ama garsooraha ciyaarta dhexaadinayo. Pitch or field waxa waaye garoonka. Players waa ciyaaryahanada. Rules waa shuruucda. Let's look at the sum of the people involved in the game of football. Let's look at and egno some of the people qaar kamid dadka involved ku lug leh in a game of football and gameka kubadda cagta. Waxaa kamid ah marka goalkeeper oo goolhayihi ah, defender daafici, midfielder qadka dhexe, forward or striker waxa weeyaan weerarkii. Substitute waa bedelka qofka benjiga ku jira ciyaaryahanka benjiga on the bench fadhiya. Manager waa maamulaha ama macalinka. Referee waa garsooraha ama arbitraha. Linesman waa calansidaha, linesman calan wade. Football parts of the pitch or soccer parts of the field. Qaybaha kubadda cagta garoonka kubadda cagta uu leeyahay marka la kala qaybiyo waxaa loo kala qaybiyaa intan. Goal waa goolkii. Penalty spot waa meesha laga laado goorada marka la dhigto kulkulaadka penaltyga. Corner waa geeskaas koonaha laga soo qaado koornada. Center cycle waa wareegan center cycle. Center spot waa qadka dhexe kubadda laga baasto. Touchline waa xariiqinta. Waa xariiqda kubadda marka ka baxdo la dhigayo. Halfway line waa halfkaas barka garoonka barkiisa halfway line. waa kan kala baro garoonka xariiqinta kala barto garoonka. Penalty area aagan goorada penalty area la yiraahdo oo ciyaaryahanka hadii lagu faawlo ama lagu jibiyo
ee noqoto rigoorada. Penalty box waa boxka kubadda ee laga laado maxaa la jira penaltyga. Goal line waa xariiqda goolka ka dambeyso. qaybtan waxaa weeyaan crossbar waa birta kore crossbar. Net waa shabaqa. Goal marka goolka dhashana goal la yiraahdaa. Goal post waxaa waaye biraha shabaqa labada dhinac. Goal post. Corner flag waa calanka koornada. marka intan waxaa waaye qaybaha uu ka kooban yahay garoonka. Saa ujeedaan. Things that happen in a football game. waxyaabaha ka dhaco kubadda cagta ciyaarta kubadda cagta. Things that happen in a football game. waxyaabaha ka dhaco ciyaarta kubadda cagta waxaa ka mid ah clearance waa markii goosha xariiqintoo kale ay dhaafi rato ciyaaryahanka soo celiyo waxaa la clearance. wuxuu ka badbaadiyey inuu gool dhasho xariiqduu ka soo celiyey. corner kick waa koornada la qaadkeeda koornada marka lasoo qaadayo corner kick. Dive waa istuurid ciyaaryahanka markuu istuuro asoo raadinaya rigooro kale dive aa la yidhaha quusid qofka inuu isquusiyo oo kor iska keeno istuuro si asoo bad galaya camal. Draw ama tie waa bareejo ciyaarta markay bareejo tahay eber eber ama hal iyo hal waxay ku dhamaataba waa in ismari waaye draw or tie. Equalizer waa bareejeyn adoo gool lagu leeyahay aad gool dhalisay marka equalizer waa. Extra time oo waqtiga zaidka lagu daro dheeriga extra time waqtiga dheeriga ciyaarta lagu daro inta badan waxaa lagu daro 3 daqiiqo laakiin haddii qaladaad kale iyo waqti dhameys kale uu jiro waa la badiyaa. Free kick waxaa waaye darbada xorta ah free kick. Foul waa qaladka ama jebinta goolka. Half time waa kala barka ciyaarta half time waa 45 daqiiqo ciyaarta markay socoto waa la joojiyaa 15 daqiiqona sida la aado marka half time. Handball waa marka qofka gacanta ku taabto kubadda handball. Hat-trick waa saddexley marka ciyaaryahanka 3 gool isku xigto hal mar dhaliyo hal ciyaar ka dhaliyo hal hat-trick. Header waa markuu madaxa ku testeeyo kubadda ku laado madaxa header testo. Injury time or stoppage time waa daqiiqada lagu daro markii dhammaan raba waxaa la dhahaa injury time or stoppage time waqtigii lagu joojin lahaa waa injury time or stoppage time. Kick off waa ciyaarta markii la laadayo ama la bilaabayo waxaa la kick off waa bilaabashada ciyaarta. Offside waa offside-ka. Own goal waa gool iska dhalin ciyaaryahanka inuu asaga gooshiisa iska dhaliyo own goal la yiraahdaa. Penalty waa rigoorada. Penalty shoot out waa rigoor markii la gaaro rigoor la tuuranayo penalty shoot out. Position waa positionka ciyaarta oo kooxda inta ay haysato kubadda loo xisaabiyaa. Red card waa kaarka cas ama roosaha. Yellow card waa kaarka hurdiga ama jaalaha waa kaarka digniinta. Red card waa midka casaanka ciyaaryahanka garoonka looga saaro. Shoot waa shoot-ka darbada. Throw in waa foorada gacanta markii lagu soo tuurayo throw in marka dhinac ka baxdo. VAR waa video assistant referee. inta badan Soomaali waxaan idhahnaa VAR laakiin ma aha sida wariyaasha Ingiriiska u dhawaaqaan waxay dhahaan VAR annaga iska dhahnaa VAR waa Soomaaligeena ka dhiganay laakiin Ingiriis ahaan waa VAR. Video assistant referees laga soo gaabiyey waa video caawinaya refereeyada. Wall waa derbi uma jirto waxa laga wadaa laakiin marka qofka kooxda ay gasho difaac ay gasho kulligood. What do you wear in football? maxaad xirataa kubadda cagta? Teams get changed in the locker room which is sometimes called the changing room. Teams get changed waxay isaga beddelaan dharka in the locker room qolka labiska which sometimes calls the changing room kaasoo mararka qaarkood loogu yeero the changing room waa qolka labiska. But what does a football player wear? laakiin muxuu xirtaa ciyaaryahan kubadda cagta dhar noocee xirtaa muxuu xirtaa? Armband was armband waa maxay marka armband? Armband well, the captain wears an armband to let the referee know that he or she is the captain. wuxuu xirtaa armbandiga si uu ogeysiiyo refereega ama garsooraha inuu yahay isaga inuu yahay kabtanka kooxda. Marka armband
waa calaamada kabtanka ee lagu xirto gacanta uu xirto kabtanka kooxda armband. Boots, special leather shoes, in this case used for playing football. Boots waa boodhka, waa special leather shoes, kaba khaas ah oo leather ah, harag ah. In this case used oo loo isticmaalo marka la joogo xaaladan for playing football, ciyaaridda kubadda cagta. Gloves, waa maxay gloves? The goalkeeper wears gloves on his hands to make it easier to stop the ball. Gloveska waa gloveka gacmaha la gashto, waxaa xirto goalkeeperka, wuxuu ku xirtaa weliba gacmihiisa si uu ugu fududeysto joojinta kubadda cagta. Kit, the football kit refers to the whole uniform that a player wears. Kit waxaa la yidhahdaa dhammaan uniformka nooc kasta ha ahaadee inta ciyaaryahanka markuu ciyaarayo uu xidhan yahay waxaa isku yidhahdaa kit. Shin bars or shin guards, protective plastic coverings that protect a player's shins from getting hurt if they get kicked. The shin is the lower front bar of the leg. Shin pad waxaa la yidhahdaa basajeriga. Shin guards oo waa la dhihi karaa waxa weeyaan plastiga daboola laf dheerta lugta oo haddii lacala ciyaaryahanka la darbeeyo difaacda. Shin waa qaybta hoose ee lugta laf dheerta loo yaqaano. Shirt or jersey, the top part of a team uniform that a player wears. It has a number on the back with a player's name above that number. The goalkeeper wears a different color from all other players on the pitch. Shirt or jersey على ماريدا فنانada la xirto. waxaa the top part of a team uniform waa qaybta sare ee kooxda uniformkeeda that a player wears ciyaaryahanka uu xirto. It has a number, waxay leedahay number on the back, dhabarka dambe ku leedahay with a player's name above, uu ka sareeyo magaca ciyaaryahanka uu ka sareeyo that numberkaas. The goalkeeper wears a different color, and goalkeeperka ama boorteeraha wuu xirtaa midab ka duwan from all the other players, dhammaan ciyaaryahanada kale on the pitch, on the field ee ku sugan garoonka. Marka shirt or jersey waa fanaanada maarida. Socks, a piece of clothing that covers the foot. In football, socks are long and go up to the knee. Socks waa sharabaatiyada ama sigsaanta. Sockska u taqaanid waa gobol dhar ah oo daboola lugta. In football, socks marka la joogo kubadda cagta are long and go up to the knee. waa kuwa dheer oo gaaraya ilaa jilibka knee. Studs, small projections fixed to the base of footwear that help the player to not slip over on the pitch. Sometimes studs are called sprigs. Studs or sprigs waxa weeyaan boolasha yaryar ee cagta hoose ee lagu xidho maxaa la jiray kabaha. waa kortumaha yarka ama boolasha kabta ay leedahay xagga hoose weliba loogu talagalay ciyaaryahanka inuusan ku taarixin garoonka. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen videogan. dad ka hesha fadlan like-ta ka xasdin. like-ta waxay naga caawinaysaa videogan inuu gaaro arday badan oo kale u baahan in luqadda Englishta ay bartaan. marka insha Allah tacaala like-ta sidoo kale xagga hoose ee faallada waxaa nooga reebtaan casharada aad jeclaan lahaydeen inaan idiin soo gudbino. insha Allah tacaala ra'yigiina tixgelinayna qof kastana u jawaabi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.